ra'iisul wasaaruhu maanta ay bisha September 2 tahay abaaraha 6 maqribnimo wax yar dhiman uu ku soo degay garoonka Dhuusamareeb socodkiisa ujeedadiisuna waa in hore loo wado hanaankii dib u heshiisiinta oo ergooyinkii oo dhan ay ku soo urureen magaalada Dhuusamareeb shirkuna furmi doono maalinka Arbacada oo ay tahay bisha 4 shirkaas oo ujeedadiisu tahay in beelaha Galmudug ay uga wada hadlaan sida ay hore ugu socon lahaayeen ugu heshiin lahaayeen laba daraadle ay ugu heshiin lahaayeen inay dhistaan dowlad goboleed danahooda horumar amnigooda iyo wax walbo ay uga baahan yihiin nidaam dowladeed u qabata marka ra'iisul wasaaruhu berrina wuxuu geli doonaa shirar kala duwan oo uu la geli doono wufuudda halkan u timid shirka dib u heshiisiinta maalinka Arbacadana wuxuu furi doonaa shirka dib u heshiisiintu si rasmi ah u furi doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa hawshii wanaagsanayd oo meel dhalka noqotay oo hadda ka hor uu ka qabtay magaaladan muddadii 40 cisho ka badnayd oo hadda ka hor joogay tiyo kale iyo tukasi najaax badan in halkan ilaahay kala kulmiyaan rajaynaynaa annagu intuu maqnaa waa joognay waxaana ka shaqaynaynay isla hanaankaas hadda oo uu nagu soo beerayna waxaan rajaynaynaa inuu nagu soo kordhiyo dhiig cusub iyo dardar